halkan oo ah xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ayaa waxa maanta ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen haweenweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir. munaasabadan ayaa lagu taageeriyay dhamaystirka dastuurka dalka ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay horaantii bishan ku guuleysteen in ay ansixiyaan iyadoo ay xusid mudan tahay in shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah u saxiixay dhaqangalka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. kulankan ayaa sidoo kale halkudhigiisu waxa uu ahaa bulsho midaysan waxa ay ku dhisan tahay dastuur dhammaystiran iyo muwaadin awood iyo karaamo leh. sidoo kale munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen haweenweynaha Soomaaliyeed waxa lagu xusayay maalinta 8 Maarso ee haweenka adduunka taasi oo inta badan dalka laga xusay. qaar ka mid ah haweenkii munaasabada ka soo qayb galay ayaa goobta ka jeediyay hadallo ay ku soo dhaweynayaan dhamaystirka dastuurka dalka iyaga oo baaq u diray dadka ka hortaagan horumarka dalka. maanta waa 9 bishii Maars waxaanu isugu nimid inaan maantay aan maaragtay taageerno dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ansixiyeen labada gole madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dal xoreeyana uu qalinku ku duugay. war soo raali ma ka nihin marka hore waa inaan bal gacantaag annaguna aan u sameeyno haddaan haweenka Soomaaliyeed dhammaan inaan istaagno inaan dhahno raali ma ka nahay dastuurka hal wada istaaga marka dastuurka marka u horeyso wuxuu ku salaysan yahay qof kasto oo muwaadin Soomaaliyeed inuu isku xuquuqna meesha 4.5 waa ka baxday taas waa ilaahay mahadiis waxaa ku taala diinta islaamka wixii ka soo horjeedo wax kama jiraan inay tahay dastuurkan waa mid noloshayna ka mid ah waa mid cadaaladda na tusaayo waa mid na simaayo kulligeen waxaa la iska rabaa marka si cadaalad iyo calool furnaan inaan u qaabilno inaana shaki gelinin inaan waxbaa dhiman inaan isku raacno dadka Soomaaliyeed weliba gobolka Banaadir hambaliyo maalinta 8 Maarso maalinta haweenka adduunka oo qiimaha leh oo dunida oo dhan looga dabaaldego waxaan badhibsan jiray qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya wadan aan dastuur lahayn dawladba ma ah maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan haysanaa dastuur ay meel mariyeen labadii gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku saxiixay oo ku baxayo faafinta rasmiga ah laakiin qurbo joog aan noqday haddana waxaan jeclahay inaan wadankayga qayb libax ka qaato shaqooyinkiisii waxaan ilaahay ka baryayaa Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in ilaahay kor ka dhigo dal xureeyay runta ahay maanta oo yahay dal xureeyay runta ahay maanta oo yahay awal waa la dhahay laakiin dal xureeya maanta runtii dal xureeya waa maanta horta awalan waxaan u joognaa maarsahooda wacanay maalintii haweenkee hooyada xurowday marka aan maqalno in cadaaladu jirto oo aan baarlamaanna waa ahay wasiirna waa ahay la taliyana waa ahay dibaddana waa ka imaana daqiiqad ka bacdi waxaa laga dhigaa la taliya haddana dibaddaydan u noqonaa inay dhammaato cadaalad wax loo qaybsanayana waa u fadhinaa waa kaa sugaynaa inkastoo la kala daran yahay oo wada dareemayno mid kastaba wuxuu doonayo uu darafka haystaayo dibjirkan dalkan nabad la rabin diida ficilkiisa markii la isku dumo naflu darajo yeeshaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna sheegay in baarlamaanku dalka uu guul weyn gaaray maadaama uu noqday kii ansixiyay dastuurka iyaga oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uga mahad celiyay dadaalka uu geliyay in la dhameystiro dastuurka dalka oo maanta wadankeena uu yeeshay dastuur taasaa farxad noo ah marka waxaan leeyahay aynu marka waa mahadsan yihiin xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka baarlamaanka madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada dhammaantood waa mahadsan yihiin madaxweynayaashii sanadkii dhawaa markii ay musharaxiinta ahaayeen madaxweyne kasta wuxuu yiri waxaan dhameystirayaa haddii aan noqdo madaxweyne dastuurkan dhameystirayaa ani waxaan u maleynayaa xildhibaanada hadda Soomaaliya ku jira baarlamaanka qof da'ma ah qof iga cimri dheer inta baarlamaanka ku jira ma jiraan u maleyn ani waxaan ku jiraa 25 sanadood ayaan baarlamaanka Soomaaliya ku jiraa intaana waxa la waday dastuurka iyo
sida loo sameyn lahay maqaamka gobolka banaadir si loo sameyn lahaa ayaa la waday nasiib wanaag maanta markii u horreysay guushii u horeysay madaxweynaha naga xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay dastuurkii inuu bannaanka soo dhigo xildhibaanadina ansixiyaan aniga ma rabo xildhibaano iyo wax kale inaan ka hadlo ma rabo kii mucaarada xaq u leeyahay kii muxaafidna xaq u leeyahay maxamed Suleymaan Nuur warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho